إذا aad la socotaan waxaan daraato tagnay xaafadda Howlwadaag aniga iyo dhalinyaro iyo odayaal uu ka mid ahaa taliye Sambululshe halkaas oo aan u tagnay inaan deegaankaas maalmo soo joogno qaybna ka noqono banaanbax halka ka dhici lahaa siday ummadda Soomaaliyeed ogtahay shalay galab annagoo joogna halka oo shir lale odayaasha dhaqanka beesha Muruusade oo uu hogaaminayo ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ayaa waxaan ugu bilowday weerar oo nagu soo qaaday taliska waqtigiisu dhamaaday ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud markii hore waan yaraysanay laakiin wuxuu u muuqday weerar laba lixaadsanaya markaa kadib ayaan isku daynay inaan raadino xog waxaa noo soo baxday in halkaa lagu soo weeraray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo dhan oon wax ka maqnayn halkaa waxaa ku sugnaa dhammaan madaxda dhaqanka ee beesha Muruusade waxaa nala joogay xildhibaan Sambululshe siyaasiyiin odayaal dhaqan xildhibaano ay faa'iido ka mid ahayd dadkaas kulligood meesha waa ku laan gaareen shalay waana ku laan kareen in ka badan 70 qof oo shacab ah iyo mas'uuliyiin shantii galabnimo abaarihii ayay weerarkaas bilowday waxaa noo yimid odayaal dhaqan oo uu hogaaminayo imaamka iyo ugaas Maxamed Cali ugaas oo ay ku jireen senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer iyo senator Yusuf Geelle ugaas dhegay waxaa kaloo ku jiray walaalkii Maxamed Mawlid iyo Saabay oo ahaa guddi dhexdhexaadin ka shaqeynaya guddigaas waxay u tageen madaxweyne Shariif waxay u tageen ra'iisul wasaare Roble Cabdiraxmaan Shakuur iyo rag kale aniga iyo Sambululshana waa noo yimaadeen guddigaasi waxayna yiraahdeen waxaan rabnaa mas'uuliyadda isu keenida dalka iyo ka shaqeynta xalinta taagtaaga inaan xalino waxaan rabnaa mas'uuliyadda inaad nagu soo wareejisaan madaxweynuhu waqtigiisu ka dhamaadana uu nagu soo wareejiyay waxaan iri waa idinku wareejinay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan qorno communique ama qoraal war-saxaafadeed aan soo saarayno waa qoreen waa la akhrinay waxay yiraahdeen ma ansixiseen haa dawladda waqtigeedu dhamaadana waan kan soo ansixinaynaa halka iyadoo marayso ayaa weerarkii mar kale bilowday oo laba lixaadsaday ugaasyadii dhaqanka siyaasiyiintii odayaashii waday nabadoonnimada iyo dhexdhexaadinta uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday soo diray iyo kuwii dhaqanka beesha Muruusade oo ugaaskooda hogaaminayo oo aan qofi ka maqnayn ayaa waxaa lagu amray ciidanka dawladda in dadka gurigaas ku jira ay soo afjaraan 15 saacadood oo xiriir ah ayaa dagaal lagu socday hub aan naloo adeegsan male hubiya laga soo tuuray madaxtooyada dhexdeeda drones aan loo abayeelin baa laga soo tuuray qoriga uu ka weyn yahay ayaa laga soo tuuray iyadoo ay joogaan dadkii magaaladan odayaasha iyo siyaasiyiinta ka ah weerarkaas wuxuu ahaa weerar loogu talagalay annaga in nala ku soo afjaro ilaahay fadligiis laakiin waa annagoo caafimaad qabno oo fiican ayaan halkan taaganahay
laakiin wuxuu ahaa weerar beegsi ah oo la isku dayay xalayto in nala ku dilo. waa nasiib darro marka in nin wakhtigiisa dhammaaday uu leeyahay si aan xukunka u joogo xataa kuwa aan ergada u diray iyagoo erge u jooga meeshii aan ergada ugu diray ayaan ku soo dilayaa. waa mucjisooyinka waddankan ka dhacay mid ka mid a. hadda waan halkan taagannahay waxaa duulaan lagu yahay madaxweyne sheekh shariif oo ciidan uu u sii socdaa guriga uu ka degan yahay cabdicasiis si nabada uu u degan yahay. qofku marka uu guri dego meesha aad rabta magaalada ka deg, kaaraan deg, cabdicasiis deg, dayneela deg, howlwadaag deg, gubadley deg, oo qof walbo Soomaaliyeed meeshuu rabo degi karaaye maxaa ciidan looga daba geenayaa? qof guri uu degan yahay inaad ciidan ku soo weerarto waa inaad gardarantood rabto dadka inaad leyso. waa wana hadda socda. ciidamada Soomaaliyeed ee hadda guriga madaxweyne sheekh shariif ku sii socda oo duulaanka ku ah waa ka digaynaa iyagana. madaxweyne shariifna waxaa loogu socdaa sharci darro, waxaana loogu socdaa beegsi. halkan aniga iyo odayaasha halkan taagan waxaan ka sheegaynaa wax kasta oo mas-uuliyad darro ah oo ka dhalata meeshaas waxaa iskale mas-uuliyaddeeda madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday. waxaa kale oo aan rabaa inaan halkan ka sheego saraakiishii xalay oo dhan annagana weeraraysay oo na soo xabadaynaysay haddana shiikha u socota oo annaga noo soo weeraraysay inay nallayso iyagoo noo leynaya ilaalinta xukun sharci darro ah oo uu ku fadhiyo qof wakhtigiisu dhammaaday. waa idin naqaanaa, waa idin ognahay, magacyadiinaan naqaanaa, waa noo bareerteen, sharci darraad noogu bareerteen. ma la idinka yeelaayo, ma lays ilaawaayo. annaga waxaan rabnaa saraakiilaad tihiin, ciidanaad tihiin, ku ekaada ciidannimadiinna. idinkoo qof u shaqaynayana ma soo weerari kartiin. madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday, wakhtigiisu wuu dhammaaday. waa madaxweynihii hore, marna ka joogsan mayno xuquuqda raadinta sharciyadda dalkan iyo dalkan inay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsaha badan. ma ka tanaasulayno halganka aan wadno inuu sii socdo, ma ka leexanayno, ma nala cabsiin karo, ma joojinayno. sida hadda ka hor aan sheegay, annagu sida xalaba aan diyaar u ahayn. madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waa ogaanayaa, annaga geeri diyaar baan u nahay, laakiin geedi diyaar umay. meel ugama soconno meeshaan. marka intay goori goor tahay dadka Soomaaliyeed oo magaaladan jooga iyo dalka intiisa kale waxaa laga rabaa inay fahmaan hal nin baa raba isagoon sharci lahayn dalkan inuu xoog ku joogo oo khatar geliyo ummadda Soomaaliyeed. khatartaas ummadda Soomaaliyeed gelinayana waa khatar ay tahay kulligan inaan gacmaha ka wada qabano. ugu dambeyntii waxaan rabaa wararka khaladka ah iyo saxaafadda khaladka ah ay dawladda wakhtigeedu dhammaaday isticmaalayso ay leedahay annagaa soo abaabulnay ciidan. war annagu sideen ciidan u soo abaabulnaa? annagoo guryaheenaan tagnay, annagoo dadkeenna u tagnay oo banaanbax ka shaqaynayna. sideen nin guri isaga jiray loo soo weeraraa? annagoo guri baan ku jirne, maba laga bixi kara guriga aan ku jirne. labo, inay yidhaahdaan maleeshiyaad tiro badan iyo hub tiro badan aan qabsanay. xaggey joogaan maleeshiyaadka? annaga ilaaladeena nala socota keliya.
waxaas waa dhiiggeena la banaysanayo mana yeelayno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu